dad Soomaaliyeed si kaashadaan waxa laga yaabaa bandhigyada qaar in hay'ado caalami maalgeliyaan baa dhici karta laakiinse bandhigan waxa maalgeliyay ganacsatadii magaaladan waxaana abaabulay dhalinyaradii magaaladan taasina waa guul runtii aad u weyn magaalada Boosaaso shakhsiyan markaan ka hadlo anigu inkastoo hadda muddo ka maqnaa haddana saameyn weyn bay u leedahay magaaladan wax ku bartay waa magaaladii waxaan hadda halkan la soo istaagayo ku noqday sidaa darteed lama cabiri karo abaalka ay nagu leedahay laakiinse wax yar baan ka taabanaya hore looga yiri wax badan ma oranayo magaalada Boosaaso marka la eego waxyaalo badan bay magaalooyin kale kaga duwan tahay saaka halkan laga sheego waxa la yiri waa magaalada kaliya lagu soo kala horeeyaan la kala ahayn haddaad maanta timaado reer Boosaaso baad halka magaalooyin kale laga yaabo markaad soo gasho in uu gartoba in lagu yiraahdo goorba soo gasho marka waxyaalahaas oo dhan waxa ka mid oo kale waa magaalo shaqo dadku aan ku dareemin baahi sida dad badan sheegeen maasadu waxay leedahay iyada isfasirayso waa dabcan waa maaragtay idinka kala bixi doona Boosaaso bilanay bartii lagu baraaray xaruntii barbaartaay beedkii aqoontaay beledkii dalxiiskaay baradii udgoonkiyo eeyadii maydiga boqorka ku manaystee lagu baahi baxayay bandarkii dhaqaalahe ku bulaalay ganacsigaay magaaladii bidhaantee bilicdeeda yaab kale baalaha adduunyada laga soo gawaashee boholiyow daraadii riyaan tabaaya buuraha dugsanayee barkanaya xeebtiyo ma ilaawin baalade biyo kulule kama tegin beeraheeda laagiyo batiikhii ka bixi jiray usurtii macaanayd naftana u burseesho indhaha u basaase ku buunbuunin maayee siday saaba bari tiri burjigaaga lama karo shimbiraha balweeyaa magacaaga baahsho bini'aadan daayo xayawaanka badihiyo barrigaba ku noolbaa bandar qaasim karoo kugu heesa bilanay jawigaagaan baas iyo xanuun lagu ballayno laga hela biyahaaga dawo iyo laga helaa bogsiino bashar kugu dhex nool baan gaajo looga baqino inta nugul bulshadabaad bayd aad u tahayo baadi soocta koor baan looga baran dadkaago barakaa dhexdaadiyo bartankaaga taalle taariikhdu waa buug nimba baal ku leeyahay markii la isbaduugee nimba baal u qaxayee balaayadu dalkeenniyo baabi'isay qarankii bartii lagu badbaadee nabad lagu baraariyo laga helay barwaaqay Boosaaso bilanay bartii aan yaraantii buugga iyo qalinkiyo cilmiga laygu baantee laygu baray quraankee ka bilaabay alifkay bartii aan asxaab bilan tiradoodu badan tahay ku bartoo ku yeeshay Boosaaso deeqay ruuxii kaa boqoole bariya kaa maqnaadee bidhaantaada waayaa boholiyow la darisiyo bogon waa hurdadoo burqadii kolkay tahay baabuur ku soo bood bartankaaga soo dhigay boqorkayga weynow
turki waxay daabacday 43,000 oo buug south africa waxay daabacday 5,480 buug inuu maxaynu daabacnay bilisweydiinina marka ka habsaanay dunido inaga u dambayne xasan aadan samatar baasay marka aad u fiirsatid haddaba Soomaalida dhexdeeda lafteeda gobolladeennani waa kuwa ugu liita akhriska iyo qoraalka howlkan baad aad ka garanaysaa taas shaki uma baahna aniga hadda boosaaso bil baan joogay makhaayadaha oo dhan baan fadhiistay waxaan fadhiistay masaajidadan tagay waxaan tagay fadhi ku dirirka hal qof oo buug sita wallahi aan aragay billaah waxaas dawaacay walaalayaal waxaas waacay dadkii oo dhan waxay dhageysanayaan wax ma garato wala kaalu ba meel kasta ka maqlaysa iyo wiil yar oo qosla oo media ku jira maaragtay aad u qosla marka waxaynu u baahanahay haddaba dhaqankaas inaynu bedelo bandhigan ujeedka aan ka leenahay waxa weeye intaynan halka timi intaan inta maqlaysa la gaarin horta inay ballan qaadaan inay akhriska bilaabaan oo buugta halka taala uu qof waliba xabad sii iibsado waa dareemayaa way kuwa tahay oo ma fahmaysidee iska siqaad ilaahay ma fahansiin doono insha Allah taala waxaan kaloo aan soo jeedinayaa barnaamijyada noocan ee akhriska dhiirigelinaya inaynu joogtayno oo aynu akhriska saaxiib la noqono oo qof kastaaba uu bishii ugu yaraan hal buug uu dhameeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsan yahay waxaan rabnaa inaan dadka halkan hadalada ka jeediyay maadaama waqtigu aad ciriiri u yahay in ay halkaas oo koobaan qofkiiba 3 daqiiqo ka badan si waqtigu noogu deeqaamismo oo garab faa'iidaysano waqtiga